yaraynta maabka iyo qaadashada dhulka Soomaalida ee Oromada iyo Canfarta markii meesha uu ka baxay kaligii taliyihii kawaanka dadka lagu magacaabi jiray Mengistu Haile Mariam dabayaaqadii 1991 dalka gumaysiga ah ee Ethiopia waxa uu galay marxalad cusub oo lagu magacaabay xukuumadii kala guurka xilligaasi jabhadii TPLF ama EPRDF oo hogaaminayay Mele Zenawi ayaa gacanta ku dhigtay talada Ethiopia waxaana la soo saaray siyaasad cusub iyo dastuur uu asagu watay oo Ethiopia u kala qaybiyay kilila ku dhisan qowmiyado siyaasadaasi waxay Ethiopia u kala jartay gobollo ku salaysan qowmiyado Soomaali Oromo Tigray Amharo Canfar Sidaama iyo kuwa kale wadamada reer galbeedka gaar ahaan ninka ugu tunka weyn ee Mareykanku waxa ay ku rajo weynayeen in nidaamka federaalka ah uu damin doono colaadii qowmiyadaha uuna horseedi doono Ethiopia xasilooni iyo horumar muranka xuduudaha ee qowmiyadaha ayaa durba soo ifbaxay laakiin Oromadu waxay muddo ka hadlayeen in dhulkoodii la dhimay gaar ahaan gobolladii taariikh ahaan ay ku faanayeen sida Wallo oo ahayd deegaanka uu ka talin jiray Maxamed Cali boqorkii muslimka ah ee ugu dambeeyay Oromo Wallo xukuma Oromadu waxay sidoo kale ku doodayeen inay lumiyeen dhulbeereedyo barwaaqo ah oo ku yaalay Shawa iyo Gocham iyo waliba caasimadda Finifidni Addis Ababa oo loo asteeyay inay noqoto magaalo federaal ah TPLF hadaba ay isaga xalisa cabashadeeda waxay bilowday inay Oromo siiso xuquuq dheeraada xisbigii OBDO oo ahaa garabka Oromada ee ku jira isbahaysiga EPRDF ayaa kor loo qaaday nasiib darrase Soomaalida ayaa ka mid noqotay waxyaabihi Oromo lagu qancinayay waxayna Soomaalidu noqotay bawlkii siyaasadda ee EPRDF markii xuduudaha qowmiyadaha Ethiopia la sameeyay 1992 Soomaalida waxa lagu qanciyay inay ka tanaasulaan dhul ballaaran oo ay hore u lahaayeen dhulkaas oo ku yaalay Hawaas ama Awash wax yar kadibna waxa laga fogeeyay magaalada Harar iyo hareeraheeda halka Diridhaba loo bedelay magaalo federaal oo maamulkeeda uu u gacan galo sida ay Tigraygu ugu taliyaan waxa kale oo Soomaalida laga qaaday degmooyin badan oo ku yaalay Baali Nagayle iyo meelo kale talaabadii u xumayd ee Soomaali looga dhacay dhul si loo gashado canka iyo ciribta hoosteeda looma ooyaana looga dhigo waxay ahayd talaabadii Oktoobar 2004 bishii Oktoobar 2004 waxa la qabtay waxay Etoobiyaanku afti ku sheegeen waxaana aftida lagu go'aamiyay xuduudaha u dhaxeeya deegaanada Oromada iyo Soomaalida laakiin Soomaalidu si adag ayay ugu hor yimaadeen habkii aftida loo maamulay iyagoo ku eedeeyay Oromada iyo ciidamadii federaalku inay cabsi gelin caga juglayn iyo xoog adeegsadeen si kastaba se ha ahaatee 18 November 2004 gumaysatada Ethiopia waxay shaacisay natiijo ay ku sheegtay afti taas oo dhul ballaaran oo Soomaaliyeed ku wareejinaysay Oromo golaha baarlamaanka Ethiopia ee uu gacanta ku hayay EPRDF ayaa si fudud u ansixiyay natiijadaasi waxay dhulka Soomaalida ka jartay meelo badan oo ay ka mid yihiin Hawaas Baali Nagayle ilaa agagaarka jidka tareenka ee u dhaxeeya Diridhaba iyo Addis Ababa ugu dambeynna Soomaalidu waxay khasab ku waayeen magaalooyinka Maayso Baabili Fayambiro Bardooda iyo Jinacsani oo dhamaantood lagu daray dhulka Oromada waa dhul Soomaalidu lahayd oo ku yaalay gobolada City daawo oo dib laga sameeyay Liibaan iyo Faafanba dhulkaas oo loo boobay Oromo Jinacsani waxay jigjiga u jirtaa 12 mayl oo kaliya hadda intuu abiyo joogay Makanis ayay maamul u magacaabeen Oromada ma wax iska caadi ahba xuduud sameyntaasi 2004 waxay ahayd talaabo culus oo muujinaysa in Ethiopia oo maamul ahaan hore u qabsatay dhulka Soomaalida ay haddana ku talagashay in dhul ahaan shacabka ay kala wareegaan ayadoo diyaar u ah in dhulka Soomaaliyeed siiso Oromo Canfar iyo cid walba oo kale sanadkii dhowr mar ayay Oromo dhul ballaarsi doonaysa dagaal ku soo ekaysa magaalooyinka Mooyaale iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Hudad oo ay rabaan si hor leh inay u qabsadaan Maarmaarso oo ku taal gobolka City waxay Oromadu dacwad ka wadaan inaan looga talin deegaanka Soomaalida lagana dhigin ismaamul magaalo dagaal kale oo ujeedkoodu yahay dhul ballaarsi ayay ka soo qaadaan buuraha Baabili ka sokeeya iyagoo ka daba imaanaya dadkii ay markii hore soo qaxiyeen dhulkooda ina qaateen ee ku nool Qoloji beelaha Soomaalida ee dhulkooda Oromo ay qaadatay waxa kamida Absame Akisho Bursuug Ciise Gurgure Hawiye Sheekhash Hawle Gurre iyo Garre laba madaxweyne oo deegaanka Soomaalida soo martay
xilliyadaas aan ka sheekaynayna ayaa midna arrinta dhulbixintu ku mutay in taariikh wanaagsan aan ka warino waa madaxweyne Suldaan Cabdirashiid Suldaan Duulaan Rafle isagoo oo diiday inuu qayb ka noqdo saxiixa dhulqaadashada Oromada sidaasna ku waayay xilkiisii iyo madaxweyne Cabdi Jibriil oo ogolaaday boobka dhulka sidaasna ku noqday mid ay taariikhdu ku diiwaan gelisay adeega dhaga fudud oo dhul Soomaaliyeed shisheeye kursi kaga bedeshay maalin kale oo foolxun oo dhul xoog ku saabsan ayaa mar kale Soomaalida DDS ku dhacay waa maalin kale oo wax iska bedelay maalka Soomaalida Itoobiya ku hoos dalman kuwaas oo tabta Falastiin maalinba cadulkooda kamid ah qoomiyada kale loo loogayo maalintaas waxay ahayd maalintii Cabdi Ilay iyo Aadan Faarax oo hadda ah ku xigeenka madaxa xisbiga barwaaqo ee Itoobiya ka arrimiya ay degmooyinka Candhuufo Cadaytu dan la helay iyo Garbaciise ay canfarta ku wareejiyeen waxa uu heshiiskaasi ahaa kii u xumaa taariikhda casriga ah ee dhul Soomaaliyeed lagu wareejiyo dagaalada Oromo iyo canfartu ku hayaan dhulka Soomaalidu waa dagaal istiraatiiji ah oo wakiil ka yihiin waxaana laga yaabaa inaanay lahayn hal abuurkiisa waa dagaal proxy war ah xarbun bil wakaala shacabka DDS waxay degan yihiin dhammaan marinada ay Itoobiya kala xiriiri karto badda Cas iyo Indian Ocean marka laga reebo dhinaca Eritrea oo dal aanay ku degdegi karin oo maamulo waxa jira qorshe istiraatiiji ah oo ka soo fulay dhinaca waxgaradka Abasiiniyaanka iyo Oromada laftooda kaas oo ku wajahan in Soomaalida laga faramoojiyo marinada halbowlaha ah ee darafyada xiga sida aaga Mooyaale oo ah xuduudda Kenya aaga galbeedka City oo ah xuduudka Djibouti iyo xataa aaga saddexaad oo ku beegan Diridhaba iyo Saylac dhulkii Soomaaliyeed socay oo la qaaday Maayso Baabili Fayaanbiro Bardooda Jinacsani Garbaciise Cadaytu Candhuufa waxaase ka baqaya mustaqbalka dhow in faafan City galbeed iyo qeybo Liibaan Guradhamoole iyo daawa kamid ah laga gooyo ama laga saaro